bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Sawdo oo hooyooyinka agoomanka ay haystaan waxaan joognaa maanta iskuulka Al-Mustaqiin waxaan rabnaa ilmihii ciidooda aan furus waa helnay laakiin waxa la iska rabaa dharkii ciida ilmihii way nagu dhagan yihiin saaka iskuulkii aan joognaa maxaan oo haysiinaan dhahnay markay waxaan idin ka rabnaa walaalayaal oo ewl waan soo caawi jirteen haddana inaan soo caawisiin oo ilmihii dharkooda ciida meel naga saartiin halaas aan idin ku codsaynaa aan idin ka rabnaa bismillaahi rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabayaa waxaan ilmihii agoomanka oo quudiyeyseen habrahooda maasha Allah ilaahay asxanta jisakala ilaahay jisadiina jisay waan afarku waa helnay laakiin ilmihii aan ugu dhagan inay ilmihii naga caawisiin oo dharka ciid ilmaha oo naga meel saartiin asxanta jisakala ilaahay jisadiina gudo laakiin ilmihii aan ugu dhagan waan caawiseen ilaahay waxni caawiyahani siiyo asxanta jisakala walaal jiro bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu dhamaan ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin sida aad nooga warqabtaan amba aad barnaamijyadeena ula socotaan halkan waxa fadhiyo maamo Soomaaliyeed halkan kale dhinacaygan kale waxa fadhiyo maamo Soomaaliyeed maamooyinkan sida aad u jeedaan waa maamooyinka ilmahooda agoonta ah ay dhiganayeen iskoolka Al-Mustaqiin maamooyinkan iskoolka maanta waxay noogu yimaadeen in ay warbixin helaan ku saabsan xagga ciida midba mar ayay noo timid ayagoo xog ogaal raba inay ka helaan inay xog ka helaan arrimihii ciida oo le maxaa noo haysaan maxaa idin suurta galay goorma idin imaanayna marka sida aad ogtihiin ayaga naftirkooda waxa waaye xal xoogaa jijiid badan ay galeen waa ogtihiin ilmaha markay ramadaanku oo gabagaba maraayo waxa waaye waraysi badan urugba qofka hooyaha si fiican u fahmi karta iyo aabayaasha naftirkooda qaarkood ilmuhu waxay rabaan dharka ciida ayay rabaan mar walba soonka markuu bilowdo su'aasha ilmaha ay ku weydiinayaan waxay tahay hooyahaye ciidi Sawdiyaar lama ahan Sawdiyaar lama tihid goormeen loo gaday dharka ciida su'aalahaas ayaa ka imaanaya ilmaha markii ramadaanka la galo haddana markii 10kii dambe la galo wayba ka sii xoog badnaanayaan su'aalahooda waxay noqonayaan kuwo isdaba joog ah marka qofka hooyadii ayadoo cuntadii la daalaa dhacayso amba biilkii hooyadii uu culays ku haayo su'aashaas markii la weydiiyo runtii waa su'aal waxay noqonayaan murugale waxay uga jawaabtay cunuga ma hayso hadday dhahdana wax meel kuma oga oo cunuga hadhowti uu qabsanaa wuu ku dhagaa beenayna ku noqonee kuma gadaaya hadday dhahdana xoogaa dhib kale iyo wareer kale imaanayo marka runtii hooyooyin haddaan nahay aad ayay noogu culus tahay arrintaas marka aanan u haynin ilmaha ciidoodii aysan meel saarayn cunugiina uusan ogeyn hooyo ciid ma hayso amba agoonaa tahay ciid qofkuu gadaysa ma lahan ma ahan mid garta ma ahan cunugi waxba asaga waxaas fikirkaas dheer kuma jiro mar walba hooyadii waa qofka lagu dhagaayo marka biliis dadweynaha Soomaaliyeed waxaan si sharaf leh ixtiraam leh xushmad leh uga codsanaynaa inay iskoolkan ilmaha agoonta ah ee dhigta ay shalay ayaga gacanta ku haayeen ay shalay buugoodii iyo qalinkoodii dhiibayeen ay shalay afurkooda ayaga ay diyaar la ahaayeen biliis inay hadan ciida noogu daraan ayaan ka codsalahayn waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh Al-Mustaqiin Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa